dagaalka sida xun la isugu riiqmay ee muddooyinkii ugu dambeeyay ka tagnaa deegaanka Tukarraq una dhaxeeyay Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax-bannaanida ee Soomaaliland iyo dawlad goboleedka Puntland marka laga soo tago dhimashada dhaawaca iyo qasaaraha kale ee ka dhashay waxa uu u muuqdaa dagaal dhamaadkiisu aanu dhaweyn oo ay yartahay rajada laga qabi karo in heshiis la gaaro arrimahaasi ayaa waxa ugu wacan dhinacyada dagaalka ku lugta leh oo wata laba mabda oo kala fog isla markaasna ku salaysana masiirka siyaasadeed iyo jiritaanka hanaanka maamul ee salka ku haya qodobadaasi Somaliland waxay u aragtaa inay muhiim u tahay in dagaalka ay ku soo xirto xuduudda Ingiriiska uu jeexay ayna tahay wax u noqon kara qiil in adduunka ay ka dhaadhiciso inay gacanta ku wada hayso dhulalkaas ayna gar u leedahay aqoonsi haddii se taasi ay noqoto macnaheedu waxay tahay in Somaliland ay gaarto deegaanka Yowcada oo Garowe u jira dhowr kiiloomitir taas waxaa ka soo horjeeda dawladda iyo mowqifka Puntland ee ku aadan in xuduudaasi aanay waxba ka jirin ayna xaq u leedahay dhulkaas iyo dhul kale oo ay hadda gacanta ku hayso Somaliland waxay kaloo u aragtaa Puntland inay u taagan tahay ilaalinta midnimada Soomaaliya iyadoo taas kula doodaysa dawladda federaalka iyo Soomaalida kale in haddii uu hergalo fikirka Somaliland ay dhaawac ku noqonayso midnimadii dawladda ee Soomaaliya Puntland sidoo kale waxa ay ka duulaysaa in caasimadeeda Garowe aan loo soo jirsan masaafadaasi 10 kiiloomitir ka yar taas oo qatar gelinaysa jiritaanka maamulka qodobka kale ee muhiimka ah ee xusidana mudan ayaa inay jiraan dad degan gobolada lagu muransan yahay ee Sanaag iyo Sool oo labada maamul kala raacsan kuwaasi oo qaarkood xilal waaweyn ka hayaan sida Puntland oo madaxweyne ku-xigeenka wasiiro xildhibaano iyo jagooyin kale ay ka hayaan sidaas si lamid ah Somaliland ayay maamulka ku leeyihiin maqaam aan yareyn sida gudoomiyaha baarlamaanka wasiiro xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale dawladda Soomaaliya oo ay Somaliland ku eedeysay in ay dagaalka qayb ka tahay isla markaasna ay garab siinaysa Puntland wali eedaas kama aanay jawaabin hadalka kaliya ee dagaalka ku saabsan ee ka soo baxay Muqdisho waxa weeye in madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu soo saaray bayaan uu ku codsaday in dagaalka la joojiyo isla markaasna xiisadda lagu bedelo jawi nabadeed laakiin waxa la aaminsan yahay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay haysato laba daran mid dooro oo kala ah in ay siyaasad ahaan taageerto madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hogaamiye golaha ismaamul goboleedyada oo xilligan midnimada uu kala dhaxeeyo dawladda taasi oo qasab ay ku tahay marka la eego doodda Puntland ee ku aadan inay ka hortagayso sida ay hadalka u dhigtay kala go'a Soomaaliya haddii ay taasi ku dhaqaaqdana dawladda Soomaaliya waxa qiil noqonaysa doodda Somaliland oo ah in dawladda federaalku ay taageerayso Puntland xiriirka Imaaraadka Carabta uu leeyahay Soomaaliya iyo Puntland oo ah mid wanaagsan ayaa la oran karaa wuxuu noqon karaa mid keeni kara in isfaham laga gaari karo joojinta colaadda waase haddii baa la yiri Imaaraadku ay ka go'an tahay in uu ciyaaro door muddo hore ay lahayd Ethiopia oo ah in Somaliland iyo Puntland ay u arkaysay inay siyaasad ahaan isku fiican yihiin oo dhowr barna ay kala dhex gashay isla markaasna ay joojisay gumaca rasaasta oo la isku wadaarsanayay deegaanadaasi taas ayaan hadda muuqan sababtuna waxa weeye loolanka awoodeed iyo qalalaasaha siyaasadeed Ethiopia ku ogan sanadihii la soo dhaafay intaasi oo arrimood marka la isku daro waxa hubanti ah in dagaalku aan xal u ahayn labada dhinac oo uu ku kacayo naf iyo maal dagaalkii shalay oo Arbacada ahayd oo kaliya sida ilo xoogaal ah ay BBC-da waxa xaqiijiyeen dhimashada labada ciidan ee dagaalkaasi ku dhintay ayaa gaaraysa 80 qof halka dhaawacuna uu ka badan yahay intaasi